Magacaygu waa Cabdullaahi Xasan Yuusuf. Waxaan joogaa East Graphics. Waxaan dadka ka wacyigelinaynaa cudurkan kalooraha. sharciga wuxuu inoo sheegayaa in loo hoggaansamo coronavirus shuruucda ay u dejisay wasaaradda caafimaadka gobolka Minnesota iyo xarunta Bow County Public Health. sharciga wuxuu sheegayaa in qof walba afka uu xidho oo Minnesota jooga inuu afka xidho, waxaana iska kaashanaya qoraalkan New American Integration Center iyo Bow County Public Health. sharciga labaad wuxuu sheegayaa inaan dhammaanteen iska caawino gaabinta ama faafinta coronavirus, inuu qodobka koowaad qof walba afka xidho, qof walba qodobka labaad uu dhaqo gacmihiisa ama hand sanitizer uu mariyo ayaa loo baahan yahay. qodobka saddexaad waxa weeyaan in la kala fogaado 6 food ama 6 taako in la kala fogaado meelaha la iskugu imaanayo sida masaajidda iyo maaragtay suuqyada iyo santarada, meel alla meesha la iskugu imaanayo iskuulaadka dhammaan in la kala fogaado ayaa loo baahan yahay. waxaana iska kaashanaya New American Integration Center iyo Bow County Public Health. sidoo kale sharcigan wuxuu sheegayaa inaan kala fogaano 6 food oo dadka kale aan ka fogaano 6 food ama 6 taako meel kasta aan joogno, haddaynu baaskeel wadno, haddaynu maaragtay suuq joogno, haddaynu masaajid joogno, iyo meel kastoo la joogo dadku iskugu imaanayaanba in la kala fogaado ayaa loo baahan yahay. waxaanu sii wadi doonaa wacyigelinta coronavirus areadan East Graphics iyo Graphicsba iyo Bow County iyo Graphics County dhammaantood annagoo maaragtay iska kaashanayna ayaanu maaragtay dadka usoo jeedinaynaa luqadda Soomaaliga ugu soo diyaarinay wacyigelinta coronavirus. xarunta New American Integration Center waxay inii fududaynaysaa inaad heshaan hand sanitizer iyo mask afka lagu xidhanayo inaad heshaan oo si free aad ku heshaan ayay inaga caawinaysaa. waxaana la soo xiriiri kartaan xafiiskeena maaragtay ku yaal East Graphics. adresskiisuna waxa weeyaan 1401 Central Avenue Northwest Suite 3 East Graphics Minnesota 56721. waxaad soo wici kartaa lambarka ah 612-458-9074. dhammaanteen waxaanu inagu wacyigelinaynaa inaan u hoggaansano shuruucda coronavirus, inaan u hoggaansano ee loogu talagalay si markaas aynu maaragtay ula dagaalano xanuunka coronavirus faafitaankiisa. aad baad u mahadsantihiin dhammaantiin. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.